waa kulanti wanaagsan daawashada aqbaha leh subax wanaagsan oo barnaamijkeeni dhacdooyinka caalamka waxaad ku maqli doontaa wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada ka soconaya wali calbiskaad wadankeena hooyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dowladdiisa oo lagu tilmaamay inay noqotay shirkad ka shaqeysa ama kaliya ka howlgasha magaalada muqdisho iyo eedaha culculus ee mararka dambaysa loo sii jeedinayo waxaa lagu sameeyey ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Rooble oo si aad uga baxsan dhaqanka Soomaalinimada lagula kacay sida wararku ay sheegayaan waxaad kaloo maqli doontaa daawashada qiimaha leh shirkii la doonayay in arrimaha badeena iyo wadankeena hooyo lagu qaybsado ee Ankara ka sii socda iyo waliba horumar ay sheegtay Itoobiya laga sameeyay iyo waliba waxaad maqli doontaan shirkadihii ee wadankeena badiisa haystay oo war ka soo saaray markana kol kale war kala sheegay iyo warar kale oo waaweyn oo dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan ayaad maqli doontaan daawashana qiimaha leh halka wararka xiisaha badan ee inoo haray aad ku maqli daawan doontaan dabcan wararkeena daban ay kamid yihiin waxaa tahay keligii taliya aan cidina dooran si degdeg ahna nabadda u qaado ama gebi ahaanba lumi dalka Ukraine oo dhan Trump oo sidaasi ku yiri adhaxdana ka jabiyay madaxweynaha Ukraine iyo qoliba qodobo kale oo waaweyn aad baqasheen iyo sida Ruushku u guuleystay aan ku bilaabo sarkan ugu horeysiyo dabcan 20 bishii 20 iyo dabashana qiimaha leh shan oo wararkii dunida cali dhinaca diblomaasiyadda ee Puntland waxa ay ka sii wadaa magaalada Boosaaso kulamo aad u heer sareeya taas oo la sheegay in maadaama xukuumaddii iyo golihii baarlamaanka dhamaantood qaab shaqo ahaan loogu raray magaalada Boosaaso ayaa la sheegay in ay dadkoo dhan wada shaqeynayaan indhaweto waxay u muuqataa in baarlamaanka ama golaha wakiilada golaha wasiirada iyo dhammaan mas'uuliyiintu ay wada shaqeynayaan magaalada Garowe caasimadda Puntland waxaa ka dhacay kulan kale oo la sagana lagu dhaqan gelinayay go'aanka bangiga dowlad goboleedka Puntland ee ku aadan socodsiinta isticmaalka qaybo kamid ah lacagta dollarka iyadoo horey deegaankaasi looga joojiyay lacagtii Soomaaliga hay dad badan ay ku janqoobeen ayaa hadana waxaa la damcay lacagtii dollarka lafteeda in la kala shaxaado oo la yiraahdo lacagta adduunka ugu qaalisan ama ugu caalamisan in ayadana la dhaho kontonka dollar laga qaado maayo Puntland taasoo iyaduna dhabar jab kale ku noqotay dadka doonaya inay $50 loo soo diro ama qaataan dhibaatooyinka aadka u waaweyn ee maaliyadeed ee jiray ay ahayd hay'adaha maaliyadda ee maamulka Puntland oo ka duulaya waajibaadka shaqo ee kor u qaadista nidaamka korjoogteynta hay'adaha maaliyadda iyo ilaalinta xasiloonida dhaqaalaha Puntland wuxuu go'aan rasmi ah ka soo saaray isticmaalka lacagta $50 ayaa lagu yiri qoraal soo baxay bangiga dowladda Puntland iyaga ayaa dowlad saasay warbixinta ugu qoran tahay isagoo gudanaya waajibaadkiisa shaqo ee kor u qaadista nidaamka korjoogteynta hay'adaha maaliyadda iyo ilaalinta xasiloonida dhaqaalaha Puntland wuxuu go'aamiyay isticmaalka lacagta $50 lacagta gabi ahaanba ka maqnayd suuqyada Puntland tan iyo sanadkii 2021 iyadoo oo ay sabab u ahayd soo galitaanka lacag been abuur oo $50 taas oo ka gudubtay xuduudaha Puntland si ay ula wadaagaan maamulada dariska kadib daraasaad uu sameeyay bankiga dowladda iyo la tashi uu la yeeshay yiraahdeen hay'adaha maaliyadda wuxuu go'aamiyay koobdi u fasaxida isticmaalka lacagta $50 bankiga dowladda Puntland wuxuu ku wargelinayaa shacabka Puntland in si rasmi ah loo fasaxay isticmaalka lacagta $50 iyadoo aan lagu xiraynin wax shuruud ah mid marka laga reebo bal shuruudaha la mariyo lacagaha kale sida $100 $20 $10 $5 laba waajibaadka hay'adaha maaliyadda iyo ganacsatada waxaa la farayaa dhammaan bangiyada xawaaladaha shirkadaha isgaarsiinta ee bixiya adeegyada lacagaha elektarooniga ah iyo ganacsatada inay si caadi ah u isticmaalaan una aqbalaan lacagta $50 si la mid ah lacagaha kale xaqiijinta iyo kahortagga lacagaha been abuurka haddii la qabto lacag looga shakiyo inay been abuur tahay waa in si degdeg ah loogu soo wargeliyaa bankiga dowladda Puntland ayaa la yiri maamul goboleedyada dalka Soomaaliya oo dhan ayaa dowlad isugu yeedha markay waraaqaha qorayaan Puntland wuxuu mar kale ku celinayaa ayaa la yiri ama bankiga Puntland wuxuu mar kale ku celinaya sida muhiim u tahay ilaalinta kalsoonida nidaamka maaliyadeed ee Puntland wuxuuna ugu baaqayaa dhammaan hay'adaha maaliyadeed iyo ganacsatada inay hoggaansamaan go'aankan ayaa lagu yiri warka dhinaca kalena Puntland ayaa sheegtay in ay sii wado hanaanka aadka u xooggan ee joojinta dadka sharci darrada ah ee janibka ah madaxweynaha Puntland Siciid Cabdilaahi Dani ayaa waxa uu sheegay in sida ugu dhaqsaha badan amar lagu soo saaray in la joojiyo ajaanibta sharci darrada ah ee sida sharci darrada ku soo galaya deegaanada Puntland waxaana la faray dhammaan hay'adaha maamul goboleedka oo dhan inay talabadaasi qaadaan warqad uu soo saaray ayaa la yiri dhammaan waxa la ogeysiinayaa hay'adaha warqadani ku socoto oo sumadeeda la qoray in la joojiyo laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay waxa laga wadaa xalay warqad soo baxday 19 bisha labaad ajaanib aan haysan sharciga dalku galka in aysan soo gali karaynin gudaha deegaanada Puntland oo dhan waxaa la farayaa in aad ka gudataan waajibaadkeena idinkaga aadan waxaa lagu soo saari doonaa xeer gaar ah oo lagu maamuli doono nidaamka dalku galka ajaanibta soo galisa deegaanada Puntland ayaa warka lagu laray taasoo u eg in ay marakan
Puntland u dalban tahay inay xeer iyada u gaara malaha arrintan ay ku egto tan ayaa imaanaysa dhinaca kale Puntland ay sheegtay in dad aad u tira badan oo u dhashay dalka Ethiopia wadankoodii hooyo lagu celiyay ayadoo warbaahinta Ethiopia maalmihii ugu dambeeyay oo dhan ay weerar dhinaca afka ay ku qaadisay Puntland isla markaana ay ku tilmaantay in dad u dhashay deegaanadooda ama dalkooda u dhashay si aad u fool xun loogu dhaqmay deegaanada Puntland hase yeeshee maamulka Puntland ayaa arrintaas ku tilmaamay mid aysan waxba ka jirin waxayna sheegeen sida xaqiiqda inay tahay in dadkaasi kaliya la musaafiriyay wadankoodii hooyo la geeyay iyagoo sheegay in xuduudaha lagu daadgay waxayna haatan Puntland ay sheegtay inay sii wadi doonto hanaanka xaqiijinta iyo kor u qaadista badqabka iyo amniga deegaanadeeda boqolaal iyo kumanaan kun oo qof ayaa laga yaabaa ayaa in la celiyay dadka qaarkood ayaa ku tilmaamay ilaa 9 kun oo qof inay Puntland ay daabashay baabuur gawaadhi ah ay ka buuxisay goorsi horeysay wasiirka warfaafinta Puntland waxa uu sheegay in dadka haysta ama uu sheegay barnaamijka Tixka Furfadhi Media in dadka haysta ayuu yiri dalku galka ama dadka haysta ayuu yiri sidoo kalena sharciyadaha ay kamid ka tahay tan qaramada midoobay UNHCR la aqbali doono inay sii joogaan deegaanada Puntland wali wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda ayaan ku jirnay walina Puntland waxa ay dhanka kalena horumar ka sameynaysaa dhinaca dagaalada ay kula jirto kooxda argagixiso ee caalamiga ee loo yaqaan ISIS ciidamada Puntland waxa ay sheegayaan in ay qorshayaashii ugu dambeeyay lagu soo ciribtiri lahaa laguna yareyn lahaa saameynta kooxdaasi ay haatan gacanta ku hayaan Puntland maalmihii ugu dambeeyay oo dhan waxay horumar ka sameeysay dagaalka sidoo kale waxa la sheegay in 48 saacadood ugu dambeeyay qaabeyn dame oo dhinaca dagaalka iyo gulufka loo fadhiyo taasoo la sheegay in ay marka ka dameysa ay soo tarayaan go'doominta kooxaha loo geysanayo in la go'doomiyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa la sheegay in si aad u fool xun oo la dhaqantay ra'iisul wasaarihii hore ee xukuumadda Soomaaliya ninka loo jiray Roble kaasoo doonayay inuu dalka Koonfur Afrika uu aado isagoo adeegsanaya baasaboorka loo yaqaano dalku galka baasaboorka loo yaqaan diblomaasiga isagoo ah diblomaasi xaq u leh inuu qaato baasaboorkaasi ayaa wararku waxa ay sheegayaan in gabi ahaanba ay Roble ay ka joojiyeen kadib markii la sheegay in Roble oo u baahnaa inuu qaato baasaboorkiisa si uu markaasi fiise ugu dalbado una helo markaasi xushmada dhinaca soo dhaweynta ayaa wararka qaarkood waxay xaqiijiyeen in iyadoo amarkaasi uu bixiyay Xasan Sheekh Maxamuud balse uu fuliyay ayaa leeyahay ninka loo yaqaano ama ninka la dhaho muxuu ahaa Xamse ee sawir saaraa ku magacaaban oo arintaasi uu fuliyay wararka ayaa xaqiijinaya Roble si aad u fool xun loola dhaqmay isla markaana xuquuqdiisa gaarka ahayd lagu tuntay maadaama uu yahay nin diblomaasi ah oo ra'iisul wasaaraha ama lambarka labaad ee dawladnimada Soomaaliya soo qabtay waxaana wararku ay xaqiijinayaan in aad ula yaab leh loola dhaqmay baasaboorkiina loo diiday wuxuu ku khasbanaaday inuu adeegsado baasaboorkiisa ajnabiga ah ee loo yaqaan Swedishka kaasoo uu ku sii wada doono safarkiisa Roble ayaa in badan waxa uu raadinayay in uu dawladdan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu boos ka helo waxayna wararku xaqiijinayaan in Mr Roble haatan barihii ugu dambeeyay oo dhan ay xaaladiisu ay xumaatay kadib markii uu dhowr jeer codsiyo uu u dirsaday Xasan Sheekh Maxamuud inuu jago ka siiyo oo ay ka mid tahay raadinayay safiirka dalka isku taga Imaaraadka Carabta kaasoo markaasi uu ku guuldareystay gaanka durida wadashada qiimaha badan caalamka Finsbury Heights waa guri loo dhisay si casri ah wuxuuna ku yaalaa xaafadda Westland ee magaalada Nairobi waxa lagu diyaariyay 4 qol 3 qol iyo 2 qol oo dhammaantood si heer sare ah loo dhisay waa guri casri ah oo loo dhameeyay goobaha waxbarashada cibaadada gymkii swimming poolkii iyo waliba adeegyadii kale oo dhan goobtu waa faras magaalaha waxaana ku dhow cisbitaalada ugu wanaagsan iyo moolasha dalka Kenya kuwa ugu mashquulka badan ee Westgate iyo Saarisanta ay ka mid yihiin hadda la xiriir shirkadda Urban Glow oo gacanta ku haysa dhismaha guriga sidoo kale waxaad ku booqan kartaa xaruntooda